السلام عليكم guys kusoo dhawaada youtube channelka cilmi fx waa anigoo ah cilmi waxaan rabaa inaan idin dhaho ramadaan mubaarak isku soo noqod wanaagsan waqti dheer kadib inaan youtube muuqaal soo dhigo runtii waqti aad u fara badan igu qaadatay but ugu dambeyn waan soo dhigay oo waa kan inaga aad hadirtaan daawanaysaan marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan idin dhaho ramadaan wanaagsan ramadaan mubaarak ramadaankan ilaahay nooga dhigay midkii aan bashbashi barwaaqo ku gaari lahayn midkii aan cibaado aan si fiican u cibaadaysan lahayn midkii aan ku raaxaysan lahayn ilaahay ka dhigo markii laga soo tago inaan ramadaanka idinkugu tahniideeyo waxaan rabaa inaan sameeyo trade breakdown tradekaas oo aan qaatay last month February dhamaadkeeda wuxuuna ahaa bishii February tradekii ugu dambeeyay aniga aan qaato tradekan so tradekan sababtaan u qaatay marka haddii aan guda galo as you guys can see horta high time frame sida 4 hour time frame haddii aan tagno waxaad arki kartaa inuu suuqan yahay bearish market wuxuu ka imaaday supply-gan kadib markii uu mitigate gareeyay supply-gan uu sameeyay liquidity sweep oo high-gaas qaatay suuq wuxuu bilaabay inuu sameeyo bearish moves inuu sameeyo low lows and low highs so marka suuq uu sameynayo low lows and low highs waxaad ogtihiin suuqa fursadda keliya ee looga faa'iidaysan karo inay tahay sell but adigoo sellkaaga qaadanayo oo sellkaaga sugayo oo niyadaada ku haysta suuq inuu bearish yahay oo ka raadinaysid suuqa fursado bearish ah haddii aad aragto fursad zaa'id u qurux badan oo bullish ah ama counter trade wax loo yaqaano waad ka qaadan kartaa but run ahaantii dadka inta badan kulama taliyay but aniga waan qaatay way dhacday inaan qaato but tradekan aad u qurux badnaa run ahaantii waxaan ka qabtay 3% as you guys can see it waxaan ka qabtay 3% so haddii aan isku dayo inaan bilaabo marka sababtaan ugu qaatay bullishka suuqan bearishka ah inaad isleedihiin laga ninkaan waalan yahay but ma waalni suuqa run ahaantii wax raan garay horta waa liquidity waxa suuqan dhaqaajiyo oo dhan waa liquidity so suuqa mar walba oo kor u socdo oo low qaato sidaan oo kaleeto waxaan isku daynaa inaan u qaadano dhanka sare si aan u target gareyno high-gan so mar walba suuqa qaato low waxaa xig inuu qaato high because of low-ga la qaato micnaheedu waxay tahay high-gan ayuu wax ka dhigayaa weak so high-gan in la qaato ayadana waa rajaynayna so mar walba suuqa low la qaato waxaan qaadanaynaa buys si aan u target gareyno highs-ka intiin aad fahantiin aan rajaynaa marka so markii laga soo tago waxyaabahaas oo dhan suuqan waxaa dhacday in logan uu horta first of all create gareeyay so logan markuu create gareeyay intaas waxaa soo bixin ka hor oo dhan ay ahayd waxaa anaga liquidity noo ahaa high-gan so qorsheygu wuxuu ahaa inaan suuq u qaato marka inta ka galo kaleeto haddan trade-ka inuu take profit-kiga xagga ahaado but aniga 3% ay ugu filan inaan uma baahnayn inaan ilaa high-gaas target gareeyo so imbalance-igi igu soo dhow ilaa supply-gi igu soo dhowaan isku day inaan target ka dhigto marka as you guys can see it waxaa dhacday in suuqa uu sameeyo liquidity sweep wax loo yaqaano uu qaato low so sida hadda idinkugu soo sheegaya mar walba suuqa uu qaato low waxaa xiga high in la qaato because of this high wuxuu awood u yeelan waa inuu sameeyo low cusub so asaga ayaa wuxuu yahay liquidity inta inaad idila fahantiin aan rajaynaya mar walba suuqa high soo galo high-gaasna oo low sameyn waayo high-gaas wuxuu noqdaa liquidity as you guys can see it marka waxaan ka hadlayo low markii uu sameyn waayo asagaa liquidity noqdo waana la qaatay so si loo qaatay waxaa kaleeto dheeraad noo ahaa in lagu qaatay liquidity run ma aha liquidity sweep break of structure ayaa dhacay high ayaa la sameeyey weliba body close lagu sameeyey so body close markii la sameeyey kadib waxaan ognahay low walba inuu hoostiisa liquidity yaalo so lowgan qaatay high-ga waxaa yaala hoostiisa liquidity so wax London session ayay ahayd marka waagi uu noo bariyay waxaan ugu imaaday suuqa asigoo lowgan la qaatay waxaana socday marka aniga soo kor fadhiisanayay chartkeygi ayadoo la qaatay logan kadibna break of structure la sameeyo change of character sida taqaanid wax kaliya aan sugay marka waxay ahayd in suuq oo sameeyo retracement wax loo yaqaan so as you guys can see it lowgii markii la qaatay major low noo ahaa markii la qaatay logan ah low qaatay but logan qaatay move kan soo socdo uu awoodi waa inuu change of character ka dhex sameeyo haddii aan lower time frame u sii dego waad arki kartaan but waa kan logan rabay in break structure lagu sameeyo ama change of character kan ayuu ahaa liquidity sweep ayuu ku sameeyey kadib dib ayuu usoo laabtay so 15 minute time frame keeni dib aan ugu soo laabano si wax walba aan nadiif u aragno so high markii uu sameeyo waayo change of character wuxuu haddana suuqa dib u bilaabay inuu qaato lowgii hadday sameynaya liquidity sweep-ka 1 hour ayaa dib loo qaatay marka leeto oo lagu sameeyey sweep of liquidity so sweep of liquidity mar walba oo la qaato waxaan u baahanahay inuu dhacdana change of character si ay uga caddayso sweep of liquidity-ga inuu real yahay inuu awood ka qaato lowgan wax kaliya ugu cadday karo waa move kan soo socdo at least bedeli karo
hal hay soo gali kara xataa suuqa. So sidaad aragtaan guys, change of character ayaa dhacay. Kadibna suuqa waxaa soo galay supply, waxaa soo galay sorry demand. Demand ka soo galay ayaa marka 5 minute time frame markaad tagto waxaad arkaysaa candle-kan soo galay waa the last bearish candle before the this move starts. So waxaa dhacday mitigation in lagu sameeyo. Mitigation markii lagu sameeyey anaga confirmation dheeraadaan sii raadin run ahaantii, maadaama sanadka still lagu jiro bilihii ugu horreeyay xogaa suuqa waa iska si kale isaga dhan. Waxaan sugay ilaa candle ay soo galaan awood badan. So waxaan sugay ilaa candle bullish ah soo galo oo engulfing candle ah. Wuxuu engulf gareeyay candle-kan bearish-ka. Markuu engulf gareeyay kadib waxaan sugay ilaa adiga laba candle kale xoogaa. Markuu candle-kan kale soo galay waxaan xaqiiqsaday suuqan inuu momentumkiisa saacada bilaaban rabo oo already mitigation-kii dhacay, move-kiina uu dhaxba sii marayo already. So waxaan place gareystay order-keyga markaan xagga saartay, stop loss-keygana waxaan ka dhigtay below. So as you guys can see, waa kan trade inta intuusan TP-ga u dhicin ka hor waa trade sidan buu ahaa. Aan dib ugu soo laabana meeshan trade halkan baan ka qaadanay, kadib waan sugnay ilaa result-ga nooga soo baxo. But alxamdulillah waxaa dhacday in bullish momentum aad qurux badan uu soo galo, kadibna take profit-keena si sahlan loogu dhaco. So mar walba sidaas aad u trade gareyn kartaa adigana, adigoo ku xisaabtamaya lows-ka iyo highs-ka suuqa kula jiro, adigoo qaadanaya low walba iyo high walba inuu yahay liquidity ayaad trade gareynaysaa. Structure-kaaga iyo directional market-kaaga inaad maskaxda ku haysato waa loo baahan yahay guys. So haddeertaan hadaan isku day inaan xoogaa idinka dabgeeyo suuqa meesha uu maraayo, markii aan ka soo tagno trade-kii aan qaadanay, take profit-kii markii lagu dhacay oo supply-gaas ah, waxaa dhacday guys in uu soo galo momentum-kaasoo sameeya isagana sidaad aragtaanba break of structure. So break of structure-kan waxaa xigay in suuqa u soo galo supply aad u fara badan. So mitigation baa halkan ka dhacay, way sii dhaqaaqeen. Kadib haddeertaan waxaa suuqa unoo maraya in la qaatay high. So mar walbo high la qaato waxaa dhacda in la qaato low, because of low-gan ayaa awoodi waa inuu sameeyo high ba wuxuu soo qaatay liquidity. So waxaan usoo socnaa haddeertaan target-kan oo anaga waa low-gan. So guys, this is not a signal ma ahan, ha u qaadan signal ahaan, but waxaad signal ahaan ha u qaadan, but waxaad sameynaysaa theory ahaan u qaadanaysaa, ma fahantaa? So guys, supply markii la qaatay mitigation lagu sameeyay supply-ga high-gana loo qaatay, change of character ay haddeertaan sidaad aragtaan baa la sameeyay. Suuqa meesha uu maraayo maanta oo axad ah uu ku xiran yahay waa halkan. So guys, waxaan rajeynayaa marka in sabtidii markaad imaataan, isniintii markaad imaataan suuqa aad ka faa'iidaystaan supply-gan suuqa ku jiro oo idin siiyo wax walba aad uga baahanedeen confluence-kiina, kadibna aad halkaas faa'iidadiina ka qaadataan insha Allah biidhnillahi kariim. Waxaan rabaa inaad Ramadaan mubaarak insha Allah. Isla socod wanaagsan guys. Haddii YouTube-ka subscribe uusan ku ahayn, subscribe dheh. Haddii oo subscribe ku ahna aad ugu mahadsan tahay. Asxaabtaada kuwa daneeya forex-ka aad ugu share garay si ay iyagana uga faa'iidaystaan wax. Assalaamu calaykum.